daawadayaal ku soo dhawaada warbixin aanu idinka diyaarinay buurta Siimoodi ee ka tirsan degmada Baki ee gobolka Awdal. waa buur joogeedu uu aad u dheer yahay, iskuguna jirta buuro badan oo ishareera yaala ama isku wareegsan. buurtani ayaa waxa ay caan ku tahay macdanta loo yaqaano Jamestownka ama Emeraldka. waa buur si weyn indhaha ay ugu hayaan dadka degan deegaanada u dhow iyo guud ahaanba maadaama ay tahay buurtani buur laga helo macdan qaaliya. marka aad buurta dusheeda fuusho waxay indhahaagu qabanayaan ama buurtani ku nool xayawaano aad u tiro badan oo aad jeclaysanaysid inaad indhahaaga ku haysid ama aad daawato. waxaa u soo daaqsintaga buurta ama la keenaa xoolaha sida geela iyo adhigaba, maadaama ay tahay buur uu joogeedu sareeyo, taasi oo soo jiida ceeryaamaha iyo roobabka. waqtiyada habeenkii waxay indhahaagu qabanayaan marka aad buurta ka fogaato ceeryaamaha qoyaanka xiga oo buurta dhammaanteed wada qariyay. taasi ayaa waxay sababtay inay buurtu waqtiyada badankooda ay ahaato mid qoyaan xigeen ah, taasi oo sahlaysa inuu ka baxo cawska iyo dhirta ay xooluhu jecel yihiin, kuwaasi oo loo soo daaqgeeyo. waqtigan waxa buurta Siimoodi ka socda dhismaha wado la dulmarinayo buurta dusheeda si ay u sahasho in ay gawaadhidu ay buurta dusheeda ay mari karaan, maadaama markii hore ay ku dhib qabeen dadka iyagu buurtani ka gurta macdanta. wadada buurtani la dulmarinayo oo ah mid aad u dheer ayaa waxay igu qaadatay inaan buurta dusheeda gaadho wax ka badan 15 daqiiqo. dhismaha wadadani la dulmarinayo buurta Siimoodi ayaa waxa gacanta ku haya injineero u dhashay dalka Hindiya oo waqtigan iyagu ka shaqaynaya dhismaha wadadani oo uu maalgeliyay ganacsade Xaaji Maxamed Cismaan oo ah ganacsade ka soo jeeda deegaanka Siimoodi. buurta dusheeda ayaa waxaa ka qodan ceelal ka badan 250 ceel, kuwaasi oo ay leeyihiin dadka deegaankaasi. Dayib Cabdilaahi Ismaaciil waxa uu degan yahay buurta Siimoodi. waxa aan ka waraystay waxyaabaha ay caanka ku tahay buurta Siimoodi, waqtiga uu deganaa iyo sida uu uga faa'iideysto khayraadka buurta. halkan dayib badan baan deganay, waqti badan baan deganay, banaankaygu ma deganay, buurta gurideedu ma deganay. wax soo saarkaygu markaas aad buu u fiicnaa markii hore, laakiin intii tamartu yaraatay bay wax soo saarkayguna yaraaday. macdanta ay cajiibka ku tahay waxa weyn macdanta la Jamestownka, qaybta Jamestownka la yiraahdo ayay aad ugu fiican tahay. siiba Emeraldka aad hodan ugu tahay buurtani. Emeraldka markaa waxa loo isticmaalaa aduu leeyahay qurxeed baa loo isticmaalaa caalamka baybsida. kulley dadka buurta maalgelin qofka danaynaya inuu meesha wax ka helo. horta inkastoo buurtu markii hore oodnayd oo meel ay dadku soo maraan qof culus oo iska miisaan badan markuu yahay aragtida meesha horta ku yareedba inta dadka inta fudud u batay kari jirta. imika ma sha Allah wada la soo sameeyay wadada galaysa kulley imika waxa laga yaabaa khayraad badan in aad looga soo saaro ayaa suurtagal. saylada waxa loo iibgeeyaa Booramo iyo Hargeysa iyo waxyaalahan dad ganacsi ah iibsado macdanta ka shaqeeya. shirkadda waxa laga leeyahay horta aasaaskeyga hore dadkii Siimoodi markii laga helay macdanta ka farqabsaday ayay haayeen Emeraldka iibsan jiray. dadkan deegaanka ee meesha ay maalgelin jireen way haayeen. marka sida awgeed bay marka dhaqaale badan iyo wax geliyeen marka ay ceelashu maalgeliyaan. sida awgeed baa inay wadadan ku soo hogaamiyaan dadka u baneeyaan iyaguna wax kala soo baxaan ayay arrinka u horseetay. ilaa horta 250 ceel way ka qodan yihiin. badankooda inta badan waa lagu tuunsan yahay. inta laga soo guray iyo laga helay inta lagu tuunsan yahay inta laga helay baa badan ba. horta wax waliba aqoon baa u baahanto, aqoontu amba gacantu baa lagu bartaa, amba qalin baa lagu bartaa mugti. dadkan horta gacantu bay ku barteen, aragti ahaan bay ku barteen. marka cimiladii siday ciidii dhalinaysay iyo cimiladeedii iyo dhagaxii dhalinayay bay la qabsadeen oo fahmeen. sidoo kale waxa iyaguna iiga waramay halka ay marayso dhismaha wadada la dulmarinayo buurta Siimoodi. Abiib Xaaji oo kamid ah caawiyayaasha injineerada Hindiya u dhashay ee iyagu gacanta ku haya hirgelinta wadadani. halkay ka fuulaysa wadadu buurta Siimoodi marley 5 kilomitir in abaas shaqadu socotaa.
dhibta noogu weyn waxa weeye laagaha iyo daadadka iyo roobabka dhacay marley hawsha waxaan ka rajeynaynaa waan ka dabaabshaysanay dadaal badan baan ka galay wax dhibi kama jirto imika wixii yar dhiban oo dhammaystirayna waxaan ugu tali jiraa saa ku dhaqso badan inuu geynaa haddii la gaarsiiyo ahaan oo kaamaba macdanta in ku tali jirnaa haddii la u dalo ogolaado shaqaduna fiicanto si fiican bay u socotaa maanta wax naga yar maqan qayb cagafta ka maqan tiina galabteena waa imanaysaa birna shaqadu bilaabmaysa haddii la gaarsiiyo hawsha waa taa aad buu fiicantay nabadgelyo shaqadeedu aad bay fiicanta si wanaagsan ugu socota buurta khayraad fara badan bay leedahay macdan fara badan bay leedahay laakiin taymka muhiimsan waa emerald weeyaan macdan fara badan bay buurta leedahay markii hortii hore waxaa lagu qodi jiray gacanta maadaama cirku uu dheeraadeen waqti gacan laga 30 mitir 20 mitir biclash birkood gaani markii lagu isku dumay maadaama markii isku dumay waxa u baahday qalab cagaf in la helo gacan bilaadan wax laga soo reebay waa la wadi kari waayay سادرتيد بالكيني qorshaha ku jirta hadii la qadaro mustaqbalka in cagaftu ka shaqeyso buurta waxa weeye waa iskaashato ilaa 1970 iskaashato la siibay buurta iskaashadii weeyaan iskaashato sharciga waa soo nidaamsan waxa weeye aan waxa ka dhigin weeyaan ugu dambeyntii waxa aan wareysi la yeeshay injineerka gacanta ku haya jidka la dulmarin doono buurta Siimoodi waxaana wax ka weydiiyay sida ay u wadaan dhismaha wadadani waxa uu yiri here we are making road in these mountains it was difficult but now we are making good road here which will last long waxa uu yiri waxaanu buurta ka wadnaa dhismaha jidkani oo ah mid aad u adag laakiin hadda meel wanaagsan ayuu noo marayaa here we are making road since 2 months now we are almost completed around 80% of the road and the balance road will also be completed in another 2 weeks waxaanu dhismaha wadadani wadnay labadii bilood ee u dambeysay waxaanu joognaa hadda gabagabadii oo waxaanu dhamaystirnay ilaa 80% dhamaynta wadada buurta dusheeda labada toddobaad ee soo socdana dhamaanteed waanu dhamayn doonaa so you need a lot of good roads here in this country so that there is more development for so many things for any developed things you need good roads power water and everything waxaad u baahan tihiin wadooyin wanaagsan haddaad tihiin dadka ku nool dalkani dawladintaasi waxay noogu dhan warbixintii aanu idinka diyaarinay buurta Siimoodi Sikariya Cabdishafaar Sikariya Saxane buurta Siimoodi ee degmada Baki ee gobolka Awdal